marka waxaan u aragnaa Supreme Court ina jangiya waxay qayb ka qaadanaysaa in ay zinada faafini maxaa yeelay gabarta haday maqasho wiilkaaga dhaxalaad leh ninkay rabto way isu dhiibi marka Supreme Court hanaga dhaafto zinada ay faafini waxaan aad u la yaabanahay aabaha uu dhaxlay midku yahay horta waan la yaabanahay aaba ma laha la dhahay canuga marka hore soo aabaha uu dhaxlay waan la yaabanahay midku yahay oo ay sheegaysa maxkamadda waa waxaan aad u la yaabanahay midka labaad anaga diin aan leenahay kitaab quraan aan haysanaa oo iska leenahay oo noo sheegaya wixii ku saabsan arimahaas diintaanadana ma ogola ma sheegaysa nin canug aan lahayn aaba aan lahayn meel wax ku dhaxlay ma kasayna maxkamadan sare oo la yiri cunug aan garaaca dhaxal buu leeyahay arrinkaas oo loo soo tiiriyay xagga dadka muslimiinta waliba khaas ahaan leeyahay oo ilmaha noocaas oo muslimiinta la yiri horta markuu horeys waa aflagaada taas ayada ay diintii iyo dhaawac ku tahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaydu waa xasan axmed xuseen waxaan joognaa macad al-fath al-islaami waxa meeshan taagan waa culimadii wajeer labada majlisul a'imma iyo majliska subkim ayaa meeshan taagan waxaan rabnaa inaan jeedin insha Allah ta'ala arrin aan aad uga xumaanay oo dadka muslimiinta ah diintooda macnaha wax badan u dhameeyay inaan ka hadalna rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo arinta iyada waxa waaye arinta Supreme Court ay macnaha ka hadleen oo ay dhaheen canuga waladu zinaha ah ama aabaha aan lahayn oo dhaxla macnaha dhaxal buu leeyahay aabihi ku leeyahay waxaan aad u la yaabanahay aabaha uu dhaxlay midku yahay horta waan la yaabanahay aaba ma laha la dhahay canuga marka hore soo aabaha uu dhaxlay waan la yaabanahay midku yahay oo ay sheegaysa maxkamadda waa waxaan aad u la yaabanahay midka labaad anaga diin aan leenahay kitaab quraan aan haysanaa oo iska leenahay oo noo sheegaya wixii ku saabsan arimahaas diintaanadana ma ogola ma sheegaysa nin canug aan lahayn aaba aan lahayn meel wax ku dhaxlay ma kasayna hooyadiis ayuu dhaxal ku leeyahay canuga aabiis dhaxal kuma laha maxaa jira aaba la dhaxal siima ba joogo meesha waxaas waxa anaga haddana marayana ma aha waxaan ogolnahayna ma aha diinta islaamka arintaas way ka hor imaadsan tahay mid labaad Supreme Court inay ka hadlaan xaq uma laha anaga ognahay arinta inay ka hadlaan oo macnaha soo qaadaan xaq uma ilaha maxaa jira anaga waxaan leenahay qaadi koodaan leenahay wixii nikaax iyo dhaxal ay ku saabsan macnaha ahwaal shakhsiya waxa shaqo ku leh qaadi kood oo anaga aan iska leenahay muslimiinta Kenya hadii aan nahay looma baahna marka in ay ka hadlaan nimanka ayaga arintaas ay ka hadlaan oo ay sheegaan wax macnaha ayaga shaqo ku leeyihiin maaha maxaa jira dhaxal muslimiin ay leeyihiin hadalkooda waxay ku dareensan ognahay canuga muslimka oo aabaha lahayn ay dhaheen canuga muslimka oo aabaha lahayn canuga gaalka oo aabaha lahayn daa intuu jira asaga waxa loo dhahay canuga muslimka oo aabaha lahayn canuga muslimka oo aabaha lahayn aaba la dhaxal siiyo ma jiro runta hadaan isu sheegin waa sida ayde aaba oo dhaxlaaya ma jiro hooyadiisu dhaxal ku leeyahay haday xoolo leedahay laakiin aaba oo dhaxlaaya ma jiro dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa waxyaalaha diinta islaamka macnaha loogu gafaaya in laga hortagaa loo baahan yahay gooni ahaan dadka baarlamaanka loo doortay oo muslimiinta ku jiraan golaha baarlamaanka ku jiraan inay ka aamusaan arintaas xaq uma ilaha waa inay hadlaan oo ka hadlaan arinta iyada waa arin loogu gafay islaamka waa arin aan qaadanaynin wax ka soo dhaca hadii aan muslimiin ah arintaas ay waa ka hor imaasanahay mana yeelayna hada 100 jeer lagu dhawaaqana arintaas waan ka hor imaasanahay waxaan yeelayna ma arintaas ay maxaa jira canugaas ay aaba la dhaxal siiyay ma joogo aabihiis lama baha gacan kuma jiro aabaha la dhaxal siiyay muxuu yahay marka waxaan rabnaa dhaxalka islaamku wuxuu ku imaadaa nasab ku imaadaa iyo guur iyo wala wax leeyahay mid uu ku jira malaha canuga asaga mid uu kamid yahay oo macnaha uu ku abtirsanaa mas dhaxal uu ku qaadana ma jiro waa canuga banaanka imaado meel macnaha ka gala ma jirto arinta iyada waxa loo baahan yahay marka muslimiinta arintaas inay meel cad ka istaagaan oo diidaan loo baahan yahay kitaab quraan la yiraahdo leen anaga Ilaahay ka imaaday kitaabka Ilaahay aan anaga haysanaa afar nin oo reer Muuse meel fadhiisatay waxay ku hadleen anaga ma dhageysanayno
marka waxaa sayid waxaa loo baahan yahay inay muslimiinta ka hortagaan gooni ahaan waxaan aad ula yaabanahay dadka macnaha la soo doortay inay shab iska yihiin oo ka aamusan yihiin arrinta iyada waxaa ka hadlay oo kaliya arrintaas sayidta wasiirka ay leeyihiin macnaha muslimiinta maanta oo ducaale kaliya ka hadlay arrintaas waana ugu mahad celinaynaa khayr Allah siiyo haddii ana dadka muslimiinta wax diinta islaamka markii wax laga sheegay hadlayaan asaga kaliya meesha ka muuqda kuwa kale wax af ku qabtay ma garanayna marka haddii aan nahay culimada muslimiinta oo dadka mas'uulka ka gooni ahaan mandiqadan maanta aan joogno wajeer dadka macnaha odayaasha ka macnaha oo diintan macnaha maanta la weydiinaa haddii aan nahay arrintaas arrinna maraysa mana ogolin mana u qaadanayna meeshaasna wax ay canugaas uu ku leeyahay ma jirto wax anaga aan yeelaynana ma arrinta ayide marka dawladdu waxaan u sheegaynaa yay dadka wareerinin khayr Allah idin siiyo arrintaasna dawladdu ay ku wareerin anaga waxaan leenahay qaadikoodaan leenahay qaadiyaashaana way joogaan ayadoon la weydiinin iska xukumeen nimankaanay marka waxay xukumeen ma garanayn waxay yihiin waxay ay shaqo ku leeyahay dhax galeen waxaan u sheegaynaa maxkamadda sare inay ka noqoto arrinta iyada hadii ay macnaha wax fahmaayeen maxaa jira arrintaas meel ay taala qaadiyaasha shaqo ku leeyahay wax la dhaxalsiin dadka muslimiinta marka qaadi ayaga shaqo kuma laha arrintaas dhaxal shaqo kuma ay laha marka arrintaasaan anaga ka hor imaasanahay mana ogolaanayna marka intaasaan rabnaa inaan ogeysiina dadka muslimiinta ka warqabeena الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيد وداود علم قولي يوسف وكمدها علماء وجير ما أنتو وحن هل كان باق أن كجيدينينا سيدو شيخ حسن هرتي هذا الخالق وجيديي warka maanidhow ka soo yeeray maxkamadan sare oo la yiri cunug aan garaca dhaxal buu leeyahay arrinkaas oo loo soo tiiriyay xagga dadka muslimiinta waliba khaas ahaan leeyahay oo ilmaha noocaas oo muslimiinta la yiri horta markuu horeys waa aflagaada taas ayada ay diintii iyo dhaawac ku tahay midda labaad cunuga walad zinaha ama garaca wax ilaahay abuurtay oo mid oo dhaxal iskuuliyahay kii dhalay waxyaalihii la isku dhaxlayay asbaabihiina maba ku jirto shariicada ay tilmaantay sidii la isu dhaxlana ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu ku cadeeyay suuratu nisaa ayaa dadka sida isu dhaxlaan la isu daba dhigay axaadiista nabigana way cadeeyeen sallallahu alayhi wa sallama marka sidaa darteed sidoo sheekha igu hore uu tilmaamay dhammaan waxaan ka soo horjeeday culimo badan ay meelo badan ka soo jeediyeen arrinkaas inaasna cunuga walad zinaha ee garaca kii dhalay maba looga abtirinay aabba loogu nasbeynana mala ilaahay wuxuu sheegay dadka wixii dhalay aabbihi dhalay in loogu magac daro udcuuhum liaabaa'ihim marka cunugan garaca dhashay intuu ku dhashay yaa dhalay aabbihiisa lama yaqaan sidee marka loogu nisbeyn karaa qof aan dhilin dhaxal buu kuleeyahay taas inay jirin ayaan warka asaga culimada isku raacsanahay oo baaqa halkan ummadda muslimiinta ugu jeedinaynaa waxa way dadka muslimiinta waa inay ugu dambeeyaan culimadii iyo qudaadii kulli waxba filaya Kenya markii la dejinay xukunka la dejinay waxa lagu daray waa qaadiga oo loo dejiyay nikaaxi iyo dhaxalki iyo furiinki saddexdaas ayaa Kenya qodobada ugu jira kamid ah marka dadka iskala hadii laga wariyo meeka la saar taas socon mihi muslimiintana marmeys waxaana u arkaa arrintaas nafteeda in la iskiga hor keenaya dadka muslimiinta iyo waxa ay dadkan kala xogo in madax lisu gelinay dhaawacna way ku tahay dadka muslimiinta dadka madaxda muslimiinta gobolada laga soo doorto imbiyaalka oo muslimiinta maxaa ku dhacay halka walaalkeen ducaale ilaahay khayraasi jazaahullahu khayran hadalka sidoo u sheegay waana sidaas ayada taas ayay diinta xoojinaysa waxaan leenahay anaga baaqa u direynaa dadka muslimiinta dhammaan waa inay ogaadaan arrinkaas inuu yahay cunuga garaca dhaxal inuusna ku lahayn meel uu ka soo galay ayna jirin la ayadu wala xadiis wala ay noocin oo arrinta tilmaamay ayna jirin dhaawacan ay ku tahay sida darteed waxaan leenahay arrinkaas in laga warqabo dadka muslimiinta waa in arrintaas sida diintooda iyo midkood ugu dambeeyaan waxaan leenahay
warkaas ay culimada dhammaan ay hadda inta taagan oo yani subkeem laanteedii qaybteedii maartay wajeer waxa weeye ra'iisul majlis ulama oo Sheekh Abbas dhanka madax iga taagan Sheekh Xasan oo mudiirka Fathi asana culimada kale gaal iga jirto ducaadii rag dhammaan qayb kamid oo dhammaan way isla wada qabnaa baaqas ayaan jeedinaynaa intaas ayaan leenahay billahi tawfiiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du waxaan la qabaa culimadii iga horeysay wixii ay sheegeen oo waladu zina canuga aan aabaha lahayn dhaxal maleh mise malaha diinta islaamku waxa waaye dhaxal malaha culimadii iga horeysay ayaa adillada iyo mowqifkooda sheegtay mowqifka muslimiintana sheegtay laakiin ani waxaan rabaa meel kale inaan ka fiiriyo marka ay leedahay Supreme Court marka ay leedahay waladu zina cunuga aan aabaha lahayn dhaxal waaleh marka ay leedahay hadalkaas macnihiisu waxa waaye gabdhihii bilcaanta inay dhaheen wixii rabtiin dhala hadalka macnihiisu waa kaas literajihiisu waa kaas mafhuumul mukhalafihiisu waa kaas marka waxaan u aragnaa Supreme Court ina jangiya waxay qayb ka qaadanaysaa in ay zinada faafini maxay yeelay gabarta haday maqasho wiilkaaga dhaxalaad leh ninkay rabto way isu dhiibi marka Supreme Court ha naga dhaafto zinada ay faafini maxay yeelay markii la dhahay markay Supreme Court xukuntay oo ay dhahday waladu zina dhaxal waaleh gabdhihii maxay dareemayeen ummadii bilcaamihii maxay dareemayeen waxay dareemayeen waxa waaye waxaad samaynayso Supreme Court dhahday sameey waay marka Supreme Court waxaan u fahansanahay inay qayb ka qaadani in ay xumaanta faafini annaga muslimiin haddaan nahnana ma ogolin in ay todoba ruux meel isku imaadaan oo ay dhahaan ilmihiin zinada dhaxal ay idin leeyihiin taas iyada waxaan u aragnaa meel ka dhac weyn oo diintayna meel looga dhacay ummadana meel looga dhacay maxkamadan oo wadanka dastuurkiisa ina ilaaliso sharaftiisa ina ilaaliso la rabay sharaftiisa in la ilaaliso la rabay ayaa waxay horkacaysaa oo ay u horkaci in waladu zina ama gabdhaha waxay caloosha ku qaadeen bay dhaxal leeyihiin waa arin meel ka dhacay waana ka xunnahay baarlamaaniyiinta baarlamaanka dadka ku jiro MCyaalka gafanayaalka mas'uuliyiinta looyarada muslimiinta kulli waxaan u baahanahay arintaas in laga soo hor imaada oo la fiiri edab daradooda inta soo kees oo gabdhaha muslimiinta ee maxkamadan hadda saan leh oo waladu zina dhaxal waaleh leh waxay diiday gabdhaha muslimiinta inay xijaab xirtaan secondaryalka inay boodiyalka inay xijaab xirtaan ay diiday war shalay asba diiday maxkamaday in gabdhahayna iskuulaha secondary ay xijaab ku xirtaan waa diiday waxaadna dhahday gabdhihiina madaxa adeysteen maantana waxaadna dhahday tii zina qaada cunugeeda waa banaan yahay dhaxal waa macnaheedu waxa waaye qof maxkamadan aaba noola soo diray oo nala dagaalamay saasaan u fahansanahay waxaana ka fahansanahay Supreme Court inay tahay meel muslimiinta lagu la dagaalamo oo lagu gumaado saasaan fahansanahay maxay leedahay gabdhii xijaabkooda diiday maanta aad leedahay dhaxalka zinada isdhaxla aad leedahay waa noola ka soo diray Soomaa ilaahay ha naga kiin qabta Supreme Court wax la dhahnaa ilaahay aan ku dayn ilaahayna naga kiin qabta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh